السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سلام دمان أصحابتا ميل با joogtaan isa kastoona maqshaan kusoo dhawaada YouTube channelka fadlan YouTube channelka haddii aad ku cusubtaa subscribe saa soo kala gambalka furo aad iyo aad baa maasan tahay waa anigu Maxamed Solution. Okay, waxaan idin wadaa maanta welcome back with another video cusub oo la soo baxday shirkadda YouTube ka Sharci aad iyo aad u adag. Sharcidaasina ay saameyn ku yeelan doonaan gabdhaha Soomaaliyeed dad isticmaala badnaa YouTube channel. sharcidaasita waxaa laga yaabaa inay qaban doonto shirkadda YouTube channel. Hadda waxaan sii arkaya gabar Zubeer la shut out sameynayso. Dadkay shut out u sameynayso waa dad iga muuqaal ay ayaga soo diyaarsanin ay soo geliyaan. Dadkaasita waxaa laga delete garan doonaa YouTube channel. Okay, idinku daad hada waxa shirkadda YouTube waxay isoo dirtay Gmail-kayga, waxay ugu soo dirtay ogeysiin oo ah inay shirkadda YouTube kala soo baxday waxyaalo fara badan. waxyaalo fara badan ay la soo baxday. aan idin tuso waxay isoo dirtay sida tan ay isoo dirtay. Hay Maxamed Solution u jeedaan YouTube channel waxaa laga mamnuucay ciyaal yaryar ah. ciyaalka yarka hadda YouTube-ka uu ku saabsan yahay ciyaal yar fal waxaan kula talinayaa inaad iska bedesho qaabkaasi. qaab soconaya maahan shirkadda YouTube maadaama lagu ganaaxay $170 milyan oo Mareykanka ah ayaa lagu ganaaxay. waxaa lagu ganaaxay sharci darro sameeyeen qaar dadka Soomaali fara badan ilmo waxaa jiraan iyagoo macnaha waxyaalo qaabanay soo dhigaan. Soomaali inta fara badan waxay dhaan keep going hor u socodsiidaan, laakiin shirkadda YouTube-ka waxay keentay adeeg cusub oo copa YouTube la dhahay. adeeggaasi wuxuu qaban doonaa waxyaalo fara badan hadduu YouTube-ka ku saabsan yahay caruur. waxa uu ku imaanaa hoos u dhac sida lacagta hadduu sameyn jiray lacagtaada waxbaa laga jiraa. hadduu macnaha lacag uu ku sameyn jirin lacagta hadda waa laga joojinaba. teeda kalena ilaa in laga xiri doono monetization waa laga xirayaa. waxay si lagu masiin doono comments-kan waa laga xiraa. marka qaabka sideen ugu badbaadaa? qaabkaas waxaad ugu badbaadi kartaa laba siyaabood aad ugu badbaadi doontaa. aan idin tusi doono labada siyaabood aad mari doontaa. ugu horreyn marka hore aan soo furno YouTube Studio ayaa soo furanaysaa. haddaadan haysan YouTube Studio waxaad ka helaysaa Play Store-ka aad ka helaysaa. Okay, Play Store-ka aad ka helaysaa. aan u imaano channel-kayga. waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay asxaabta meesha ay ku qoran tahay video ugu horeeya taabanaysaa. aniga video ugu horeeya waa kana midkaan ayaa soo geliyay. aad taabanaysaa waxaad ka sii dooranaysaa qalinkaas yar u jeedaan ayaa ka sii dooranaysaa qalinka aad taabanaysaa. qalinka taawo waxaad ka sii doonaysaa meesha muhiimadda u socno advanced settings. waxaad imaanaysaa outdancing muxuu ka caawinaa marka waxaad imaanaysaa falaarta yar ee hoos timaada outdancing wuxuu ku dhahay yes it's made up for kids. YouTube-ka ma ogasha ma waxaad soo gelinaysaa waxyaalo caruur ku saabsan ama wuxuu ku leeyahay no it's not make for kids. uma rabo YouTube-kayga inaan kusoo bandhigo caruur. waxaad taabanaysaa no it's not made for kids ayaa taabanaysaa. markaad taabato waxaa kaloo shuruud kale shuruuddaas oo ah YouTube-kaaga haddaa 13 sano ka hooseyso waa laga xiraa, laakiin waxaa loo ogol yahay inay isticmaalaan ciyaal qof weyn 18 jir. waxaad fiir meeshaad waxaa ku qoran yes restrict my video to viewers over. yes waxaan u ogolahay dadka video daawanaya inay jiraan 18 sano. tan kalena waxay tahay no don't restrict my video to viewers over 18. uma ogola inay daawadaan dad ka yar da'dooda 18 sano. waxaad taabanaysaa no ee taabanaysaa. aniga waxay saarno sida tan idin tuso no ee taabanaysaa. markaad taabato meesha sir ee save ku qoranta ee taabanaysaa. aniga hore ayaa u save gareystay isla markii meeshada ay soo direen hore u save gareystay. marka sidaas u soo gareysato YouTube si automatic leh waxay ku siinaysaa inaad YouTube-ka aad kusoo bandhigi doonto muuqaaladaada aad adiga leedahay. teeda kale lagama delete garan doono haddaa YouTube-ka lagu arko barnaamij ciyaal in laga delete garan doono ogow. YouTube-ka waxaad kaloo ka baaraysaa video aad adiga lahayn. haddii lagu arko videodaal aad adiga lahayn YouTube-ka waa laga xiraa. waa sharci ee la imaan doonto 2001 December ama 10 December ee la imaan doonta. sharcidaas cusub ayaa la imaan doonta YouTube channel-ka. fadlan haddaa YouTube channel-kaaga aad waxaas ku jiraan ka delete garay muuqaal aad adiga lahayn haddii ku jiraan ka delete garay waa iga codsi. okay, si oo YouTube-kaaga u noqdo mid waxtar leh si dhaqsiga bad ugu delete garay. waayo waxaa loo baahan waxyaalo fara badan aad adiga juhdi ku bixis inaad soo geliso maahan inaad soo geliso waxyaabo aad adiga lahayn inaad soo geliso maahan. marka shuruuddaas ay bilaabeen dadka qaar ay fahmaynin YouTube Studio waxay ka heli doonaan sida Play Store-ka oo kale. haddaan idin tuso Play Store-ka aad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay waxaad qoraysaa YouTube Studio. okay, YouTube Studio taabanaysaa.
si direct ayuu ku keenayaa waa soo degsanaysaa open ayaad leedahay inta sib aan soo marnay hab ayaad soo maraysaa YouTube channelkan waxaad ka ilaalisaa wax copyright ah haddaba YouTube channelka aad bay u dhaarsan tahay shirkadda ku taal Mareykanka oo FTS la dhahay waxaa ku xukuntay 170 milyan oo dollar oo Mareykanka lagu xukumay sharci darre sameysay markii YouTube channelkan YouTuber qaar waaweynka hadda waxay ku bilowday inay ka qaado 42,000 saxal arkaas saxaaf uu sheegay keep going ay leeyahay qaab computerized oo idin tusay anigana waxaa idin tusaa qaab by mobile idin tusaa qaabkaas aad isticmaal kartaa haddaa rabtana hadduu kugu jiro aadan fahmin YouTube Studio waxaad kaloo kasii tagi kartaa Google Chrome ma maxay Play Store ka taabanaysaa Google Chrome ayaa meesha ku qoraysaa Chrome ayaad ku qoraysaa marka Chrome ku qorto si direct ayuu ku keenayaa waa kana si direct ayuu ku keenaa open ayaad leedahay markaad open dhahdo aniga aan soo bilaabo meesha search-ka waxaad ku qoraysaa youtube.com ayaad ku qoraysaa sida aad u jeedo ay ku qoran tahay waxaad taabanaysaa saddexdaas dhibcood ayaad taabanaysaa waxaad kasii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay desktop site ayaad saaraysaa waxaad kasii dooranaysaa meesha ay kusii qoran tahay saddexda dhibcood sawirkaaga saaran yahay ayaad tagaysaa markaa kasii tagto waxaad kasii dooranaysaa YouTube Studio meesha ku qoran tahay YouTube Studio ayaad taabanaysaa YouTube Studio markaad taabato waxaad kasii gudul tagaysaa meesha ay ku qoran tahay settings ayaad tagaysaa waa kaas settings meesha ku qoran waxaad kasii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay channel markaad ka doorato waxaad kasii dooranaysaa advanced setting waa kana aniga waxa u jeedaa had inuu yahay no set this channel as not made for kids I never upload content that's made for kids ogola YouTube-kayga inaan ku soo bandhigo fiidiyodo qoseyso caruurta markaad taawato save ayaad leedahay aniga save ayaan hor u dhahay si direct ayuu macnaha shirkadda YouTube-ka kugu soo jawaabaysaa marka intaas sameyso asxaabta YouTube-kaaga ku soo bandhigin waxaad adiga leedahay waxaad ku soo bandhigtaa waxaad adiga juhdi ku bixisay juhdi isgeli marka asxaabta khayr badan ay rajeynaya inta muuqaal noocis la mid aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh fadlan haylo inaad subscribe saarto like aan saarto muuqaal commentiga waa dhiirigelin bye bye asxaabteeda aan jeclahay